jamhuuriyadda Jabuuti ayaa maanta waxaa si rasmi ah loogu soo gabagabeeyay kulankii ka faa'iideysiga Bangiga Horumarinta Afrika ee wadamada Geeska Afrika. kulankan ayaa waxa uu ahaa mid ay ka soo qayb galeen xoolo dhaqato iyo beeraley ka yimid gobolada kala duwan ee wadankan Jamhuuriyadda Jabuuti, waxaana goobtaasi ay kaga hadleen baahiyaha ay u qabaan lacagaha uu ugu deeqay bangigaasi. lacagta uu ku deeqay Bangiga Horumarinta Afrika ayaa mas'uuliyiintii ka socda bangigaasi waxa ay sheegeen inay tahay mid wax looga qabanayo sidii dadku ay uga soo kabsan lahaayeen isla markaana ay uga hortagi lahaayeen abaaro yimaada mar kale oo degdega sida dhacday sanadii 2012. Cabdiraxmaan Beyle oo isagu ah agaasimaha guud ee bangigaasi u qaabilsan arrimaha beeraha iyo xoolaha ayaa waxa uu ka warbixinayaa ujeedada kulankani. السلام عليكم واد معدسنتين شركني wuxuu ka hadlayaa mashruuca lagaga hortagayo abaaraha iyo dhibaatooyinka ay keenaan. mashruucaas oo soo socday muddo ay ka qayb galayaan ilaa 8 wadan, imikase ay ilaa haatan ka qayb galayaan 3 wadan. wadanadaas oo ah wadankan joognay Djibouti, Kenya iyo Ethiopia iyo IGAD secretariat-ka oo iyaguna ka qayb galaya. marka kani waxa weeyaan furitaankii qaybihii wadankan la siiyay iyo IGAD. marka waxa la isku yimid halkan waxa weeyaan bilowgii isticmaalkii lacagtii la isticmaali lahaa sidii loo hirgelin lahaa qaybta halka kan ayaa aanu isku nimi. marka furitaankii weeyaan waxa bilaabi doona marka dhaqangelintii baa bilaabi doonta hadii la yiraahdo mashruuca. maruu ka hadlayay dhinaca Soomaaliyana waxa uu sheegay in ilaa imika aan Soomaaliya soo gudbin proposalkii loogu talagalay qaadashada lacagtaasi iyo waliba macnaynta qaabka bangigaasi hawlihii uu ka qaban lahaa gudaha wadanka Soomaaliya. Soomaaliya waxa cid waliba rumaysan tahay. cid waliba waxay rumaysan tahay haddii dhibaatada aan waxaan ka hadlayaa siyaasadda ka hadli maayo haddii dhibaatada ku dhacday wadanada halkan ku yaalo Soomaaliya ugu sii darayd dad fara badan baa leeyahay oo dhintay, xoolihii baa dhamaaday. maanta sanadkani waa sanad wanaagsan oo roob fiican baa daay, laakiin roobkii mushkiladiisa waxa weeye haddii aan biyihii markay yimaadaan wax laga qaban soo badageli maayaan. marka waxaan anigu idhaahdaa markaan la kaftamayo Soomaalida marka roob ku daayana aqaladay galayaan, markay ka soo baxaan biyihii way socdeen. hadda balagada saasa caadadu ma tahay dadka dhulka jooga. marka biyihii hadii laga shaqeyn waayo oo markay daayaan wax loo sameyn waayo lagu hakiyo oo lagu joojiyo si loo isticmaalo hadhow dhibaatada way soconaysaa. ma bariyo baa dadkan ku jirayaan, bariyo un ma lagu jirayaan. waxaan markaa doonaynaa waxa weeyaan in baryada laga baxo. dadkan dhulkan degani waxay leeyihiin in ku filan inay si fiican u noolaadaan, laakiin haddaan maskaxda la isku keenin iyo muruqa oo aan wax la qabanin waxa ma hagaagayaan. marka bankan oo ah banka Afrika ku shaqale oo dhibaatada Afrika damqayso wuxuu doonayaa waxa weeyaan bilowgeedana bilaabay inuu wadanada la shaqeeyo sidii biyahana loo joojin lahaa, xoolahana baad loogu heli lahaa. kulankan ayaa waxa uu daba socdaa kulano dhowr ah oo Bangiga Horumarinta Afrika uu ku qabtay wadamo kala duwan isla markaana looga doodayay sidii wax looga qaban lahaa abaaraha soo noqnoqday ee wadamada Geeska Afrika. Mikael Cabdirashiid Bare, Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, Djibouti.